Wacan oo wanaagsan daawade maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay tareenka dhex maro saxaraha wadanka Mauritania. Tareenkan sida xididka halbowlaha oo kale waxa uu maraa dhankaas iyo qaybta waqooyi ee wadanka Mauritania. Tareenkan waa laf-dhabarka dhaqaalaha wadanka Mauritania. Sida Soomaalida oo kale, dadka ku dhaqan wadanka Mauritania waa dad xoolo dhaqato ah. Haba ugu badnaadaan geela, lo'da iyo ariga xoolaha ay dhaqdaan. Tareenkan wadanka Mauritania waxaa la bilaabay dhismihiisa 1960kii iyada oo la soo gabagabeeyay sanadu markay ahayd 1963. Jidkani tareen waxa uu dherer ahaan la yahay 704 kiiloomitir ama 437 mayl. waxa uu iska xiriiriyaa xarunta macdanta birta ee Zawreed ilaa iyo dekada Nawaadib. Tareenka dherer ahaan waxa uu la yahay 3 kiiloomitir, taasi oo ka dhigan in uu yahay tareenka ugu dheer uguna culus caalamka. In ka yar boqolkiiba 0.2 ayaa ku habboon in la beerto wadanka Mauritania, halka dhulka soo haro uu yahay dhul saxara ah oo aanan waxba lagu beeri karin. taasi oo ka dhigan in boqolkiiba 99.8 uu yahay dhul saxara ku daboolan. Dadka wadankani ku nool boqolkiiba 30 waa dad asal ahaan Carab iyo Amaaziq ka soo jeedo. abaarihii isxigxigay ee 1970kii iyo 1980kii ayaa waxay sababtay in dadka inta badan ay magaalooyinka soo degaan. أمور شو الشاي وقراب وشي ثاني معاه ما نعرف شنو، معاه الزبير والعلاء وما أشبه ذلك وهوك وإله وشينا وعملنا هوك وإله وهوك ما نعرفوش الأمور يوهوك. inkastoo marka aad kor ka eegtay wadanka Mauritania aad isleedahay waa wadan saxara ah oo aanan wax nacfi lahayn, laakiin waa wadan ay ceegaagaan macdano kala duwan. kuwaasi oo aanan laga maarmin noloshan casriga ah sida birta oo kale.
macdanta birta ayaa zaa'id ku badan waddanka Mauritania ayadoo ka qayb qaadato boqolkiiba 50 dhaqaalaha waddankaasi. xawaaraha tareenkan ayaa ah 35 kiiloomitir saacadiiba, sababtuna waa in uu sido xamuul zaa'id ah. sababta keliya ee loo dhiso tareenkan waa inuu qaado macdanka birta ah. tareenkiiba waxa uu qaadaa 17,000 oo tan oo bir ah, birtaasoo awood u leh in lagu dhiso taawarka dheer ee Paris. saxaraha waddanka Mauritania waxa uu ka mid yahay meelaha ugu angegan caalamka marka laga reebo xeebaha waddankaasi oo ku teedsan badweynta Atlantic, halkaasi oo dadka deegaanka ay kalluunka kala soo jilaabtaan. Malik oo 27 sano jir ah ayaa waxay noloshiisa ku tiirsan tahay tareenkani waddankani Mauritania dhex maro, isaga oo kalluunka uu ka jilaabto dekedda Nawaadib uu iibgeeyo tuuladiisa oo ku dhow meesha macdanta laga qodo, isaga oo raacayo tareenka. soddon saacadood oo safar tareen ah ayaa waxa uu ku qaadanayaa lacag dhan $50. heerkulka maalinlaha ah waxa uu kor u dhaafaa 40 digrii, iyada oo macquul tahay in uu qofka ka dhaco tareenka. kadib marka uu soo iibiyo kalluunkiisa, Malik waa mid nasta muddo 2 beri ah, isaga oo intaa kadib safarka tareenka dib ugu soo raaco dekedda Nawaadib. dadka ku dhaqan hareeraha meesha uu tareenka maro waa kuwa noloshooda 100% ay ku tiirsan tahay badeecada uu keeno tareenka
sida biyaha, cunnada iyo alaabta kale. tareenkan oo ah xiriirka keliya ay caalamka la leeyihiin. tareenka waddanka Mauritania waa laf-dhabarka dadka ku nool saxaraha. ما شاء الله